xaflad loogu talagalay in xulka ciyaartooyga gobolka Togdheer lagu guddoonsiyo deeq lacag oo qurba jooga reer Togdheer u soo direen kana soo qayb galeen maamulka gobolka madaxda ciyaaraha iyo mas'uuliyiin kale ayaa lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer ee magaalada Burco. deeqdan lacag oo lagu soo hagaajiyay Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa ku wareejiyay madaxda gobolka Togdheer. Cabdimaalik oo faahfaahinaya deeqdan lacageed ayaa waxa uu yiri waxa lagu soo hagaajiyay lacag dhan $1675 ciyaartooyga gobolka Togdheer waxaana iska soo ururiyay oo hormuud ka ah hablihii u ciyaari jiray Togdheer basketka ama kubadda kolayga. waxa kale oo iyaguna wehelinaya dad kale oo iyaguna reer Burco qaarna ciyaartooy ahaayeen qaarna ay reer Burco yihiin oo aan kubad baxdhir la lahayn laakiin jacayl ay Burco qabaan yani u kacay dhalinyarada inay dhiirigeliyaan. waxaana hormuud ka ah oo iyaduna si gaar ah hormuud uga sii ah inaan la yiraahdo Foosi Xasan Aadan oo ku sugan Finland ayaa iyaduna akoon furtay oo yani ku dhiirigelisay dadka inay lacagtaas ka soo ururiyaan. Barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiri tababaraha xulka gobolka iyo barasaab ku xigeenka gobolka Togdheer ayaa iyaguna u mahad celiyay dadkii soo diray deeqdan. inta waxaan raacinayaa mahadnaqayaa hablaha soo diray lacagta gaar ahaan inanta qabanqaabada lahayd Foosiya Xasan iyo ciddii ka qayb qaadatayba Mr. Cabdimaalik Muuse Coldoon oo isaguna lacagta lagu soo hagaajiyay inoo keenay markii ay soo gaadhayba sideedina lagu soo gaarsiiyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. maanta shirkan kulley waxa inoo qabtay Cabdimaalik oo lagu soo hagaajiyay ashiyaad ay ku soo hagaajiyeen hablo sportska ciyaar jiray oo basketka waliba ciyaar jiray hablahaas oo ku soo caawiyay xulka gobolka oo maanta guul ka soo hooyay ciyaarihii lagu qabtay gobolka Togdheer. waxaan aad mahad ugu naqayaa hablaha gartay ciyaartooygii Burco inay baahidooda jirto ee lacagta soo ururiyay ee ay Foosi Xasan Aadan u horeyso aad baan ugu mahadnaqaynaa aad baan u soo dhaweynaynaa taariikhda Burcana meel baan uga qoraynaa hablaha. Ibrahim Faarax Macaaneye Hon Cable TV Burco.